Okay, waa mar kale iyo casharadeenii basic excelka ahaa. Waxaan maanta ku fiirinaynaa arrintaana ku fiirinaynaa comments looga tago oo loo yaqaano excel note ama loo yaqaano comments in excel oo gudaha inta loogu qoro qof uu intuu wax ku qoro uu kaaga tagayo. Marka halkan note-kana iga daba yimid criteria-yadii 60 ahaa waxaa la yiri waa la bedelay 75 aa laga dhigay. Marka waxaa laga rabaa inaad adigana daaradaada aad bedeshid. Okay, marka waxaa laga yaabaa waxaa inay problem aad raahid how am I supposed to approach this haddii aadan horay u arag. Laakiin waa easy. Halkan waxaa igu jira function igu jira oo ii maamusha waxaan dhan ii maamulaysa. Waxaa kaloo haystaa kalaradan waxa sababaya oo la yiraahdo conditional formatting. Hadda halkaas ka dhigo waliba halkan haddaan ka dhigo ama halkaas haddaan ka dhigo haddaan 55 ka dhigo fail uu helaya. Haddaan meeshiisa ku celiyana waxaan helayaa ma garanaysaa pass. Marka waxaa dhisay oo maaragtay ku jira conditional formatting ku jira. Marka waxaan dhan iga halaabaan ma rabo. Waxaan waa hawl badan oo aan waqti badan soo geliyay. Marka ma jira si fudud oo aan uga soo bixi karo arrinkan waxaygana aan maaragtay haysto. Objective-ka maanta waa intaas taasaan rabaa inaan tuso. Waa jira halkaan aad tegaysaa meeshaas 65-ka ah 60-ga ah waxaan ka dhiganaa 75 intaan leenahay. Marka waa 75 aan ka dhignaa. Waa aragtaa marka 74-ka markuu hadaayata ahaa wuxuu haystay baas uu qofkaan haystay. Hadda laakiin wuxuu haystaa fail uu haystaa. Marka haddaa aragtid anybody oo haystaa 60 less than 75 haystaa waa dhacay. Anybody oo ka koreeyana waa baas. Haddii aan inta marka waa si kala sooci karnaaba waxaan leenahay markaan tagaynaa waxaan leenahay inta baaska ah iisoo kormari ama score-ka oo ugu koreeya iisoo kormari si aan arko meesha dhicitaanka ka bilaabanayo. Marka waa aragtaa dhicidda waxay ka bilaabatay hadda 74 ka bilaabatay. Wixii 75 ka koreystana waa baaseen. Okay, asaga note-kan marka haddaa isweydiiso tiraahdo note-kan see loo create gareeyay asaga waa fudud yahay sida note-kan loo sameeyo. Halkaana tegaysaa review-ga tegaysaa. Review tab-ka markaad tagtid meeshaan comments-ka group-ka maaragtay laga sameeyaa. Waa kaas new haddaa rabtid inaad sameysid halkaas ka sameynaysaa. Laakiin waxaan siinayaa hawl ka fudud shortcut key aan siinayaa. Shortcut-ka waxa waa shift iyo F2. waa kaas markaa soo baxay. Halkaas markaa waxaan ku leeyahay I have updated the data. I have updated the data aan leeyahay waa kaas markaa waa geli. halkan waxaa lagu yiri update gareey to 75. halkan waxaan ku leeyahay waa update gareeyay. meeshaan hadday fiiriyaan uu qofka fiiriyo to confirm si uu confirm gareeyna wuxuu arkayaa 75 inay ku jirto. hadduu rabo ayagoo dhan inuu hubiyo inay 75 ku jirtana wuu sii fiirin karaa. marka waa arkayaa hadduu listiga uu kor raaco inuu mid walbeeto 75 ay tahay wax lagu apply gareeyay. marka clipkan waxaan ku kafar gareynay oo muhiimadiisa objective-kiisu ahaa note-ka haddii aad note ku dhex aragtid iyo maaragtay sida uu edit gareyn lahayd function-ka kugu jira. hadda koor clip aan sameeyay waxaan ku kafar gareeyay sida loo edit gareeyo formulada iyo sida loo edit gareeyo function-ka iyo sida loo edit gareeyo daarada caadiga ah. marka tan hadda waxay noo suurtagelisay arrintaana dhacday si fudud annagoo maaragtay confusion iyo waxba isku ridin u xalinay. marka I hope someday inay ku anfacdo oo aad maaragtay ku apply gareyso problem kugu yimaada adoo keep gareystay everything already haysatay function-kaagi iyo formuladaadi iyo waxaagi iyo conditional formatting-kaagi iyo everything else adoo haysta inaad si simple arrintan oo kale u xalisid. clip-ka dambaan noo balana.